وزير الدولة وزارة دارمها دبادة جمهورية الصومال دكتور محمد رشيد الشيخ حسن وصعداله كوتشوغا ودن كقدر ayaa kula kulmay magaalada Dooxa jaaliyada reer Somaliland ee wadankaasi Qatar xafladan oo ismeen qaar kamid ah jaaliyada Somaliland ku nool wadanka Qatar magaalada Dooxa ayaa ugu horeyntii waxa hadalka furay mid kamid ah aqoonyahanka reer Somaliland ku nool wadankaasi Qatar Omar Caleed oo wasiirka uga mahad celiyay safarkiisa shaqo iyo kulanka quruxda badan ee uu la qaatay dadkiisa ku dhaqan magaalada Dooxa ee wadanka Qatar intaasi kadib waxa hadalka qaaday Siciideer oo isna hadal qiimo badan ka soo jeediyay madasha iyadoo aan la soo koobi karin shakhsiyaadkii ka hadlay goobtaasi ayaa waxa lagu soo dhaeyay wasiirka dawladda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Somaliland Dr. Maxamed Rashiid Xasan wasiirka hadalkiisa loo sugayay waxa uu ka hadlay waxqabadkii wasaaradda muddadii ay talada hayeen oo uu ku tilmaamay inay ku tallaabsadeen horumar xagga siyaasadda arrimaha dibadda isla markaana ay xiriir badan la sameeyeen wadamo badan oo kamid ah kuwa danaya arrimaha Somaliland oo iminka wax badan ay iska bedeleen aragtidii wadamadaasi ay ka qabeen waxaanu sheegay inaanay cidna uga hakan doonin sidii ay uga midho lahaayeen rumaynta rabitaanka shacabka iyo xukuumadda Somaliland ee la xidhiidha itiraafka kulanka jaaliyada Somaliland ee magaalada Dooxa Qatar ay kula qaateen wasiirka dawladda arrimaha dibadda Somaliland ayaa ahaa mid ay ka soo qaybgalayaashu goobtaasi su'aalo toos ah ay ku weydiinayeen si ay wax uga ogaadaan xaaladaha dalku maraya waqtigan xaadirka ah